والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan mahad u sugnaatay eebe noo suurtageliyay maanta in halkaan iskugu nimaano annagoo ah ururka dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Youth for Somalia YFS. maanta oo taariikhda ku beegan tahay 16 bishii saddexaad labada inoo suurta gashay inaan meel marino oo aan saxino dastuurka ururka u degsan yahay inuu ku dhaqmo. waxaan maanta halkaan iskugu yimid kulan iskugu yimaadeen golaha sare ee ururka wakiilada golaha fulinta iyo golaha guud marti sharaf iyo dheergarad. runtii aad aga mahad celinayna martida ka soo qayb gashay. waxaan ilaahay aga mahad celinayna marka koowaad makaninta iyo awood ansixinta dastuurka. runtii waxay noqon doontaa oo waxqabad muuqda ku soo kordhin doonto howlaha iyo waxqabadka ururka marka loo eego isku xirka iyo qaab dhismeedka ururka dhexdiisa, adkeenta iyo wada shaqeynta iyo u qabashada howlaha danaha guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada, si ururka uu ula jaan qaado arrimaha adag ee wajahaya waddanka. wuxuu qabasho dhab ah oo la taaban karan loo gaaro. waxaa laga maarmaan noqotay in la ansixiyo dastuurkan lana meel mariyo. waxaa kaloo halkaan mahad aga soo jeedinayna guddigii loo xilsaaray xinta iyo soo diyaarinta oo muddo intaan la eg kusoo bixiyey diyaarinta dastuurkan oo sida u jeedaan ka kooban 20 ku dhawaad page ka kooban oo waqti dheer iyo juhdi dheer ay ku bixiyeen. runtii waxaan leenahay waxa qabateen marka koobaad waxa u qabateen ummadda Soomaaliyeed, marka labaad waxa u qabateen ururka, waana wax aan la iloobi karin oo baal dahab geli doono arrimaha wuxuu qabashada iyo gudashada waajibaadka. runtii waxaa culays weyn u ahayd ururkan ku soo biiraya ama haddaba si volunteer ah hoosh u qaban jiray oo ka qayb qaadan jiray howlaha ee adkaato in ay ogaan waayaan halka ururka uu higsanayo iyo ujeedooyinka ururka. runtii waxaan is leenahay hadda wixii ka dambeeyo wax qabad dhab ah oo wax u tari doono ummadda Soomaaliyeed in loo soo jeedin doono, lana bilaabi doono in la isku xiro dhammaan guddiyada iyo golayaasha ururka uu leeyahay wax qabad dhab ah in loo bilaabo. runtii aad aga الدين